سؤاشا تضبط تمرادنا وحي تهاي سيدة. جزاك الله خير شيخ وحن كوريوضي هو يدي ودمتي لإيسو شيغي كدبنا ميد كيدا aan arkay wajigeeda dhinac ka gubnaa hooyadeena way nooshahay ii fasir. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسو دوادا الشيخ ريمي channel. waxaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaan dal iyo dibad iyo da kasto aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kasto aad tihiin rag iyo dumar Allah subhanahu wa ta'ala waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunyo meel san leh aakhiro janno leh inuu wada siiyo dhamaanteena aamiin aamiin aamiin. maanta waa maalin arbaca ah waxaan ku balansannahay barnaamijkii ahaa maxaad ku riyooteen jawaabihii aad noogu soo qorteen ama su'aalihii aad noogu soo qorteen commentiga inaan idinka soo jawaabno. qaybta koowaad waxaan ka jawaabnay 10 su'aalood qaybtii labaadna 20 su'aalood qaybtii saddexaadna 25 maanta waa qaybtii afraad meeqaan ka dhigaynaa waxaan ka soo dhignay 50 jawaabood insha Allah biidnillaahi alkariim. 50 kaas aan ka soo dhignay su'aashaad haddii aad ka maqashid fillaahi alxamdu haddii aadan ka maqlin insha Allah noo cudurdaar kas uguma inaan tegin su'aashaada commentiga videogan commentigiisa ku soo qoro si aan kuugu soo jawaabno. barnaamijyadan aan soo gudbino haddii aad ka heshaan fadlan subscribe dhaha gambalelkana furta si ay idin soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigno oo aad u noqoto qofka ugu horeeyo ee arka si aad u noqoto. haddii asxaabtan hore noola jooga aad ka mid tahayna waxaan kaa codsanaynaa inaad like-ta sidii roobka aad inoogu yeesho biidnillaahi alkariim. waxba iskuma daalinayno su'aashii koowaad ayaan hadeertaan aan u gudbaynaa insha Allah waxayna tahay sidatan. waxaan ku riyooday suuratul huud akhri ku celceli anigoo leedahayo. bismillaahi wasalaatu wasalaam ala rasuulillah. riyadaas way fiican tahay waxaa tahay qof diinteeda iyo wadada toosan ee siraatul mustaqiimka ah ku toosan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. riyada labaadna waxay tahay السلام عليكم شيخ ريم وحن كوريوضي قعان كوان أو قريقا عن كدح أركي يسوف السر جزاك الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رياضة قعنت قعان هدي قعنت مديك أي تهي قعان بدح دي تهي إنها كالوات ويفعنان لهت هدي قعان قف تقانت أي تهي يهدادن قف أقوين أي تهي ويفعنان لهت على أي حال إلا إيو وحان كتأويلنا يا أما أنكو فسرها يا لبا قيبوت قيبت كود وحويان waxaad kala go'i doontaan qof qaraabada ka mid ah isaga ha ka go'o amaba adiga ka go' yacni qof ayaa magaranaysaa qaraabada ka mid ah ayaa ka go'i doono adiga sabab u ahaw amaba isaga sabab ha u ahaado. mina labaadna waxay noqon kartaa qof qaraabada ka tirsan familiga ka tirsan in dhibaato ay soo gaari doonto ilaahay idinka xijaabo wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. riyada saddexaadna waxay tahay sidatan. السلام عليكم شيخ ريمي قور أياك استقارستي ويل أو إسو دونتي أو دخو أيا رياضي ويمت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رياضاسي وفي عن تهي قف كاسي دقو أو يعني كو يمت وحي كدغان تهي قف آد اسكو عمرسان إنو أهان دونو والله سبحانه وتعالى أعلم. رياض أفرادنا وحي تهي سيدة. السلام عليكم شيخ ريمي الله كحفظه وحان كوريوضي قوسيهيغي إلكيهيغي أو قعنتيد كوغورايو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رياضاني ووناكسان تهي marba haddii gowsahaaga iyo ilkahaaga gacanta ay ku soo daateen ama aad ku guratay laba mid ay noqon kartaa. marka hore cimrigaaga waa uu dheer yahay dadka gurigaaga ku nool oo dhan adiga ayaa u dambeyn doona. mid labaadna waxay noqon kartaa insha Allah biidnillaahi alkariim ilaahay khayr kaaga dhigay in aad maal fara badan aad heli doontid oo adiga aad ku cimrisid insha Allah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. riyada shanaadna waxay tahay sidatan. waxaan ku riyooday haweene qaar nin madow oo fool xun oo ur badan oo aan garanaynin. bismillaahi wasalaatu wasalaam ala rasuulillah. marba haddii aad ku riyooto qof madow oo fool xun oo yacni ma garanaysaa aadan garanaynin camalkaaga ayaa camal xun ah. tusaale ahaan rasuulku wuxuu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam aakhire markii la tago qabriga la galo camalkaaga ayaa ku imaanayo
mar wuxuu kuugu imaanayaa isagoo qabiix ah, ur badan, fool xun oo weji xun ayuu kuugu imaanayaa. marna wuxuu kuugu imaanayaa isagoo qurux badan, dhalinyaro ah, shaab ah, maasha Allah, wanaagsan, caraf badan ayuu kuugu imaanayaa. sidaas daraaddeeda haddiiba qof aadan garanaynin fool xun oo ma garanaysaa madow badan oo aadan garanaynin kuu yimid, camalkaaga ayaa xun. waxaan ku dhihi lahay qofka su-aashana soo weydiiyo isdaba qabo, ilaahay ha ku barakeeye. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada lixaadna waxay tahay sidatan. asalaamu calaykum sheekh reemi, waxaan ku riyooday walaashii oo dhimatay laakiin walaashii way nooshahay, iisoo fasir. bismi illaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. laba mid unbay noqon kartaa. walaasha cimrigeeda waa uu dheeryahay insha allah. midda labaadna waxay noqon kartaa haddii walaashaada qof heesaa dhegeysta ay tahay qof qalbigeeda dhimadsan waaye. ii sheeg adiga uga nasteexay oo ma garanaysaa waani. hadday qof wanaagsan tahayna cimrigeeda waa uu dheeryahay, haddii qof xun ay tahayna waa lagaaga digayaa in aysan sidaasi ku dhimanin. qalbigeeda ayaa yacni mugdi ah. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada toddobaadna waxay tahay sidatan. asalaamu calaykum sheekh, jasaaka allahu khayr. waxaan ku riyooday hooyo dhimatay, rabbi ha u naxariistay, oo bariis karsan oo macaan badan isiinayso, waana cunay. bismi illaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. hooyada insha allah marka hore waxaan u rajaynaynaa inay tahay ahlu janno, marka labaadna insha allah wax u bixi wixii awooddaada ah. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada sideedaadna waxay tahay sidatan. asalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday biyo socdo oo badan. su-aashaani waa haaf. biyo socdo oo badan haddii aad ku riyootay inaad ku maashoonaysay in siday yihiin ma sheegi karo, laakiin way ficnaan lahayd in lana soo dhammaystiro. ka gudub. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada sagaalaadna waxay tahay. sheekh, waxaan ku riyooday anoo dahab badan god kala soo baxayo. bismi illaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. riyadani way wanaagsan tahay. laba mid waaye. in aad meelaan wax ka fiilaynin aad heli doontid, kanzi ah aad heli doontid. dahabka marna waa uu xun yahay, marna waa uu fiican yahay. kan lagala soo baxayo, dhulka lagala soo baxayo waa dahab fiican, waa riyo fiicanan rabaa. ii sheeg adiga keed baad heli doontaa ama dhaxal ayaad heli doontaa. dhaxal ayaad heli doontaa amaba kanzi amaba keed oo yacni shaqo ha ahaato amaba wanaag ha ahaato, horumar ha ahaato, wax meel aadan ka filaynin ayaad ka heli doontaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada tobanaadna waxay tahay sidatan. sheekh, jasaaka allahu khayr. waxaan ku riyooday anoo biibaayo habeen walba oo dagaalna waan galayaa, kadibna waan duulayaa. bismi illaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. qof waxaa tahay ii sheeg adiga camal asaga uu samaynayo uu ku gudbaayo ayaa tahay. ilaahay khayra kaaga dhigo. qof markuu duulayo way wanaagsan tahay. shidooyin badan baad ka gudbi haysaa. waxaa laga yaabaa inaad tahay qof ducaysan. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada 11aadna waxay tahay sidatan. sheekh, waxaan ku riyooday marar badan 2 bil oo cirka ku wada yaalo. bismi illaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. riyadaasi waa calaaciibul shaydaan waaye, ka magangal. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada 12aadna waxay tahay sidatan. asalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday anoo qur'aan la ii saarayo oo wiilka aan wada socon jirnay meel fadhiyo oo ifiirinayo, maxay ka micno tahay? riyadani way isku qasan tahay. wiilka adiga aad jecleed inaad qur'aan lagu saarayo, ii sheeg adiga wax isku kiin keenayo ma jiron. waxaa laga yaabaa in xadiidu nafsi ay tahay. idan waa ka gudbaynaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada 13aadna waxay tahay sidatan. asalaamu calaykum sheekh, jasaaka allahu khayr. waxaan ku riyooday anigoo nin indhoole ah i guursanayo, aad ii jecel, waana lii qabaa. bismi illaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. ninkaaga camalkiisa fiiri. haddii qof wanaagsan uu yahay, salaada ku wanaagsan uu yahay, riyadani way kuu fiican tahay insha allah biidni illaahi alkariim. haddii qof ma garanaysaaye ii sheeg adiga muqayil uu yahay ama ma garanaysaaye habeen iyo maalinna ma garanaysaa xumaatada ka soo jeeda, salaad ilaahay aan lahayn ama galabgalab uu yahayna ii sheeg adiga qofkaasi inaad u degtid waaye, maadaama xaaskiisa adiga aad tahay sidaas yoo ku dhimanin. camoolnimada riyada ah ma fiicno. adilay ahaataa qof kale lay ahaada. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada 14aadna waxay tahay sidatan. asalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday gabar yar aan dhalay oo ila hurdo oo bahal madow iga qaadanayo, markaasna intaan fadhiistay aan ka celinayaa. please iisoo fasir. bismi illaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. awlaadaada ayaa afdad kaa haayo ama xasad kaa haayo ama cuyubnaas kaa haayo. ciyaalkaasi qur'aami, ciyaalkaaga qur'aami. hadday hal leh, hadday laba tahay, waxay ahaataba wax ciyaal adig aad leedahay
quraami wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada 15aadna waxay tahay sidatan. assalaamu calaykum sheekh, allah kheyraa ku siiyo. caloosha i weynaato, mar haween hore zaa'id ii soo furtay sida naag 9 bilood camal. waxaan ku riyooday anoo dhalay 2 mataano, waxna ma dhalin, xaas ayaan ahay. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. walaashayda waa xanuunsan tahay, ilaahay ha ku caafiyay. marka hore suuratulbaqara haddaa akhrisan kartid akhriso maalin kasto, dadan akhrin karinna dhegayso. wallahu subxaanahu watacaala aclam. su-aasha 16aadna waxay tahay sidatan. assalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday anigoo jaranjaro ka degi karin la. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. dad ayaa rabaan inay hoos kuu dhigaan, adigana insha allah bidnillahi karim waad ka diidan tahay. ilaahay ma dhaho jaranjarta laga soo degaahay ma fiicno, ha ka soo degin, weligaaga iska saarnow. wallahu subxaanahu watacaala aclam. su-aasha 17aadna waxay tahay sidatan. jazaaka allahu kheyr sheekh, waxaan ku riyooday hooyadii oo dhimatay la ii soo sheegay, kadibna meedkeeda aan arkay, wejigeeda dhinac ka gubnaa. hooyadayna way nooshahay ii fisir. xasbunaa allah wanicma alwakiil, xasbunaa allah wanicma alwakiil. riyadaani ma fiicna. hooyada camalkeeda dib u fiiri, haddii wax ka qaldan yihiin u nasteexeey. inta kama soo bandhigi karno waxay tahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada 18aadna waxay tahay sidatan. assalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday anoo madaxweyne la joogo iyo anoo meel sare saaran. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. madaxda haddii lala joogo meel sare la saaran yahay waa riyo wanaagsan, ku bishaarayso. rag iyo dumar waxaa tahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada 19aadna waxay tahay sidatan. assalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday anoo dab i bursanaayo oon ka cararaayo. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. riyada dabka laga ordaayo fitno waaye oo adiga aad ka cararaysid, amaba dad askar ah ayaa cadowkaaga ah. dad askar ah ayaa cadowgaaga ah oo yacni xumaatadaada raadinayaan. ilaahay ha kaa samata bixiyo, waa fitan waaye. ilaahay ha kaa xijaabo. waan ku soo duceynayna insha allah bidnillahi alkariim. riyooyinkaas oo kale ma wanaagsana. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada 20aadna waxay tahay sidatan. assalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday 2 mar anigoo dhimanayo, haddana isla aniga oo isku tacsiyeenayo. sheekh iisoo fisir. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. haddii waxyaalo badan oo adiga kaa lumay amaba kaa tagay, waqti badan kaa lumay, wixii bedelkooda ayaad heli doontaa insha allah. ilaahay ha kuu sahlo. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada 21aadna waxay tahay sidatan. waxaan ku riyooday anoo dib qolo i qaniinay, kadibna aan malab cabaayo meesha yaalo. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. maasha allah. riyadani qaybta hore way ka xun tahay, qayb dambana way ka fiican tahay. qaybtay ka xun tahay waxa dib qalooco ma fiicna. waa waxyaabihii rasuulku uu dhahay, xayawaanadii uu dhahay mufsid waaye, faasidiin waaye, faasiqiin waaye, hala dilo ayuu ku jiraa. mideeda kalentan way xun tahay. xanuun ayaa hadda ku haayo, ama xanuun ayaa kugu soo food leh, kabacdi malab baad cabtay. malabkana waa dabo, waa shifaa. waa xanuunsanaysaa, waad caafimaadaysaa. micnahaas labaad waxa weeyaan dhibaato culus ayaad gelaysaa, baxar ayaad gelaysaa, waadna ka baxaysaa insha allah biidnillaahi alkariim. waa riyo wanaagsan. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada 22aadna waxay tahay sidatan. sheekh, waxaan ku riyooday anigoo duulaaya hawada, aan baalal leeyahay. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. riyadani baalasha la leeyahay way fiican tahay. waxaa waaye qof oo magaranaysaa umuurihiisa u toosi doona, arrimihiisa isugu hagaagi doona. ii sheeg adiga hawl yacni muraad asaga uu lahaa si fudud ku gaari doono waaye. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada 23aadna waxay tahay sidatan. waxaan ku riyooday wiilkay oo isku kaashay oo haddana aan ku qeyliyaayo. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. insha allah riyadani ta'wiilo badan ayay leedahay. midka ugu wanaagsan ayaan saaraynaa oo ah wiilkaaga biidnillaahi alkariim wuxuu noqon doonaa qof horumar gaaro oo wanaagsan, oo adinka mustaqbalkiina amaba meel idinku ogaan doono, adinka iyo qaraabadiinaba. yacni adinka iyo qaraabadiisa iyo dadkii magaranaysaa wax u ahaayoo dhan wax u noqon doono. ii sheeg adiga meel saari doono. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada 24aadna waxay tahay sidatan. assalaamu calaykum sheekh, aabbahay baan ku riyooday oo i dhunkanayo. bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. waxaad ku bishaaraysanaysaa in aad tahay qof oo baari ah, waalidkiisa baari u ah. wallahu subxaanahu watacaala aclam. riyada 25aadna waxay tahay sidatan.
waxaan ku riyooday anigoo weyse qaadanayo ayaa weysadii aan dhameynin iga go'ay biyihii. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رياضاني ما في عنه قفك ويس قادنايو ويفي عنتهاي لكن أديكو ويسدي دمينين هذا نبيه كاغوين waxa ay noqon kartaa qof umuurihiisa aan isugu toosaynin wax kasta oo u kaco ay ka fashilmayaan guur buu aadaya waa ka fashilmaya shaqo bilaabaya waa ku khasaaraya mashruuc bilaabaya waa ku fashilmaya يعني magaranaysaa meel allaala meeshu oo isdhaho alle u dhaqaaq waa ku fashilmaya qofkaas oo kale waxaan kula talinayaa ducada Allah subhanahu wa ta'ala inuu bariyo shanta waqti wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam riyada 26aadna waxay tahay sidatan. Assalaamu alaykum walaal waa maxay riyada liin dhanaanta khayr haday tahay isoo sheeg hadaysan ahayn iska daa. su'aashii jawaabtii ka horeysay waan ku soo darnay riyada liin dhanaanta ah riyada liinta haddii liinta cagaar ay ahayd way wanaagsan tahay haddii ay jaalle ay ahayd ama huruud ay ahaydna xanuun waaye wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam riyada 27aadna waxay tahay sidatan. Assalaamu alaykum ya sheekh waxaan ku riyooday anigoo dad dilaayo. bismillaahi wasalaatu wasalaam ala rasuulillah jariimo waaye gardara adiga aad ku jirtid waaye ii sheeg adiga ka soo laabo haddii ummad aad gardaraysanaysid ama aad og tahay ka soo laabo dilka ma fiicno wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam riyada 27 riyada 28aadna waxay tahay sidatan. Assalaamu alaykum sheekh su'aasheedu waxa waaye riyada adigoo hurdaayo oo hurdada u bogayso qof oo hurdo jecel tahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam riyada 29aadna waxay tahay. sheekh waxaan ku riyooday anigoo weyse qaadanayo macnaheedu waa maxay mahadsanid. haddaad weysada dhamaysay haddayaan soo sheegay haddaad weysada dhamaysay muraadkaada waad heshay haddaadan dhammaynin sidii horaa tahay waa fashilan tahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam riyada 30aadna waxay tahay. Assalaamu alaykum sheekh khayr Allah ku sii waxaan ku riyooday gaari dameer buuxo anoo wado. bismillaahi wasalaatu wasalaam ala rasuulillah qof waxaa tahay ii sheeg adiga dhowr macno way yeelan kartaa qof ahlu cilmi ayaa noqon doontaa ama qof ma garanaysaa hantiila ah badar noola ah maaliya buura ah ayaad noqon doontaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam riyada 31aadna waxay tahay sidatan. waxaan ku riyooday anigoo biyo ku dhacay maasheenayo oo i badbaadiyay shaweel. bismillaahi wasalaatu wasalaam ala rasuulillah riyadani qaybteeda hore way xun tahay qaybta dambana way fiican tahay waa riyooyinka wanaagsan ayay ka mid tahay tusaale ahaan waxa waaye baxar baad ku jirtaa baxarkaas ilaahay baa kaa badbaadin doono باذن الله الكريم haddii gaajo ay tahay waad ka bixi doontaa haddii ma garanaysaa ii sheeg adiga xanuun uu yahay waad caafimaadi doontaa haddii dunuub ay tahayna khaatumo san ayaad ku dhiman doontaa waa wanaagsan tahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam riyada 32aadna waxay tahay sidatan. waxaan ku riyooday anigoo loo ibursanayo albaabka guri aan xirtay xitaa way igu soo jibinaysaa sheekh isoo fasir Allah ku xifdiyo. bismillaahi wasalaatu wasalaam ala rasuulillah lo'da oo ku soo bursanayso waa laga fiican yahay afdad ildad waaye ilaahay ka xijaabo wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam riyada 33aadna waxay tahay sidatan. waxaan ku riyooday diin ii saaran sariirta. bismillaahi wasalaatu wasalaam ala rasuulillah diinka ama diinka waxaa lagu fasiraa haweeney haddii adiga nin aad ahayd haweeney iscarfisa qurux badan raggeeda jecel weeyaan insha Allah haddii hadda aad haysato ii sheeg adiga waa sidaas haddii aadan haysanina waad heli doontaa haddii adiga ii sheeg adiga dumar adiga aad ahaydna diinka kuu saaran sariirta haddii adiga gabar aad ahayd waa guursan doontaa qof oo rijaal caqli badan caaqil ayaad guursan doontaa haddii ma garanaysaa adiga ii sheeg adiga ninku qabana waxaad dhali doontaa amaba ninkaaga horumar ayuu gaari doonaa amaba awlaad saalix ah wanaagsan caqli badan ayaad dhali doontaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam riyada 34aadna waxay tahay sidatan. waxaan ku riyooday aabbahay dhintay oo suud qaba. bismillaahi wasalaatu wasalaam ala rasuulillah suudka dadka yani wanaagsan ayay ka mid tahay suudka midabkiisa inay noo soo sheegto way fiicnaan lahayd suud hadduu yahay suud cagaar ah amaba ma garanaysaa doog ah waa fiican yahay
suud cadaan hadduu yahayna waa fiican yahay adi dhammaystiro suud madow hadduu yahayna waa uu xun yahay suudkaas wuxuu noqon karaa thiyaab ahluljanna waa thiyaab ahlinaar wuu noqon karaa haddiiba uu madoobaa ii sheeg adiga waxa uu noqon karaa thiyaab ahlunaar haddii oo jaallo ama cafwan jaallo maaha cagaar iyo cadaan hadduu ahaana waa ahlujanno insha allah adi xagga ka dhammaystiro wallahu subxaanahu watacaala aclam riyada 6 iyo 30aadna waxay tahay sida tan waxaan koriyooday guri cariish aan deganahay tiirkiisa soo jabay bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah masiibada soo socoto ilaahay ka magangal ilaahay naga wada xijaabo ii sheeg adiga aayatul kursiga suuratul baqara adkaarta ducada badi gurigaas ku badi khaasatan suuratul baqara ku akhri ilaahay wixii xun ha kaa xijaabo wallahu subxaanahu watacaala aclam riyada 30 iyo riyada 7 iyo riyada 37aadna waxay tahay sida tan assalaamu calaykum sheekh waxaan koriyooday walaashay oo cilaan xoog igu marinayso labada lug iyo hal gacan bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah cilaanku sidiisaba waa uu fiican yahay xilliyada farxadaha iyo xilliyada arooska ayaa la marsadaa haddii ay jirto in ma garanaysaa ii sheeg adiga waalidkaaga qof ay kuu soo dooreen ay rabaan inay kugu daraan qofkaas waa ku wanaagsan yahay ilaahay kuu barakeeyo wallahu subxaanahu watacaala aclam riyada 38aadna waxay tahay sida tan assalaamu calaykum sheekh waxaan koriyooday hooyo dhimatay ilaah u naxariisto oo aan kaba u iibiyey aanun u geyn waan toosay khayr allah ku siiyo bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah riyadani waxay ishaaraysaa waalidkaaga haddii oo xaqiiq ahaan uu dhintay uu dardaarmay dardaartii hala fuliyo wallahu subxaanahu watacaala aclam riyada 39aadna waxay tahay sida tan sheekh injirta timaha gasho maxaa waaye injirta timaha gasho marna way fiican tahay marna way xun tahay haddii adiga qof ma garanaysaa ii sheeg adiga wanaagsan adiga aad tahay way ku wanaagsan tahay oo yacni cariiri aad ku jirtay ilaahay in badan adiga horumar iyo bashbashi barwaaqo aad bari jirtay barwaaqo ayaad helaysaa haddii oo qof ma garanaysaa ilaahay aan u shukrinaynin adiga aad tahay nimcooyinka ilaahay siiye ku kufriyay adiga aad tahayna khasaare ayaa kuu soo socoto haddii adiga hanti yacni haddii ganacsi aad ahaydna xoolahaagii oo yacni ganacsiga ayaa kaa khasaari doona amaba kaa lumi doono haddii qof xun aad ahayd waaye oo ribada iyo xaaraanta aan u aabayeelaynin haddii qof wanaagsan adiga aad ahayd oo yacni ganacsi aadan hayninna wanaag ayaad heli doontaa horumar iyo magaranaysa dhaqaale ayaad heli doontaa wallahu subxaana watacaala aclam riyada 40aadna waxay tahay sida tan waxaan koriyooday anoo hilib bini aadan cunaayo bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah riyadaasi waa riyo foolxun dadka ayaad xamataa habeen iyo maalin iska ilaali ilaahay ha kaa samata bixiyo wallahu subxaanahu watacaala aclam riyada 41aadna waxay tahay sida tan assalaamu calaykum sheekh iisoo fasir mas oo god ku jiro aanoo biyo siinaayo bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah cadow kuu dhow ayaad adigana ma garanaysaa qof cadowgaaga oo kuu dhow oo qaraabada ah ayaad adigana ma garanaysaa horumarkiisa iyo wanaaggiisa ka talinaysaa waxaa la dhihi jiray tan oo kale waxaa weeyaan qof adiga kabihiisa aad tolaysid isagana kafantaada uu tolaayo waaye wallahu subxaanahu watacaala aclam riyada 42aadna waxay tahay sida tan sheekh waxaan koriyooday dayaxoo madoobaaday iyo dadkoo salaad u kacay dunuub fara badan ayaa jirto ilaahay ha kaa xijaabo ilaahay ha kaa dhaafo ka towbadkeen wallahu subxaanahu watacaala aclam riyada 43aadna waxay tahay sida tan assalaamu calaykum sheekh waa markii saddexaad aan ku soo weeday gabar baa igu riyootay anoo janjar ka soo degayo oo aan quraan akhrinayo bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah qur'aan haddaad akhrinaysid way fiican tahay ilaahay khayra kaaga dhigo qur'aanka ilaahay xoogga saar wallahu subxaanahu watacaala aclam riyada 44aadna waxay tahay sida tan assalaamu calaykum sheekh waxaan koriyooday aabbo oo dhintay asagoo nala joogo oo aan faraxsannahay bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah aabbihiina ha loo duceeyo dad ducaysan ayaa tihiin ducadiis allah idin dhaliyo wallahu subxaanahu watacaala aclam riyada 45aadna waxay tahay sida tan assalaamu calaykum sheekh waxaan koriyooday anoo naag fanaanad buuran oo caan meel sare la fadhiyo Soomaali ma ahan mana af aqaano iisoo fasir mahadsanid bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah riyadan haddii qof fiican adiga aad tahay way ku wanaagsan tahay qof caan ayaad noqon doontaa
haddii qof xun heesa dhageysta adiga aad tahay waa lagaaga digayaa ilaahay ha kaa xijaabo khaatim xumo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam riyada 46aadna waxay tahay sida tan assalaamu calaykum sheekh reemi wiilkayga wuxuu ku riyooday asagoo qoorta laga gooynayo iisoo fasir bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah laba mid ayay noqonaysaa haddii waalidkiisa uu ka gooyey insha allah baari waaye muraad la lahaana waa la heli doonaa haddii dad kaleenta ay yihiinna qofkaasi qof caasi ah waaye ilaahay wax xun naga xijaabo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam riyada 47aadna waxay tahay sida tan sheekh waxaan ku riyooday masas cad oo iqaniinay waan iska fujiyey dad ayaa ku xanto habeen iyo maalin ilaahay ha kaa xijaabo isquraami wallahu subxaanahu wa tacaala aclam riyada 48aadna waxay tahay sida tan assalaamu calaykum sheekh waxaan ku riyooday anigoo intay timo afka iga galeen isaga soo jiidayo mana dhammaanayaan timahaas aad ayay u dhadheeraayeen biliis iisoo fasir bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah walaal waa xanuunsan tahay haddaan ku dhaho waa sixran tahayna ii sheeg adiga meesha waa ku jiri karta ilaahay wax xun naga xijaabo isquraami wallahu subxaanahu wa tacaala aclam riyada 49aadna waxay tahay sida tan assalaamu calaykum gabar yar aan dhalay ayaa ku riyootay iyadoo dabaq ka dhacayso bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah gabadhaas in badan u duceey dabaq laga soo dhacay ma fiicno masiibo waa ilaahay naga xijaabo masiibada wallahu subxaanahu wa tacaala aclam riyada 50aad ee ugu dambaysana waxay tahay sida tan sheekh waxaan ku riyoodaa mar kasto anoo timir cunaayo bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah riyada timirta la cunaayo way fiican tahay xalaawatul iimaan waaye arsaaq waasic ah waaye haddii adiga gorob adiga ahayd waa guursan doontaa haddii gabar aad ahayd waa guursan doontaa haddii adiga xaasla aad ahayd insha Allah muraad ayaad heli doontaa muraadka ayaad heli doontaa timirtoo la cunaayo way fiican tahay ilaahay ma garanaysaa dhammaanteena riyooyinka wanaagsan allahna soo wada aadiyo walaalayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan hagaajiyey oo aan saxay aan asiibay famin allahi ayay ka ahaadeen waxaan qaldayna famin ashaytaan ay ka ahaadeen waxaan aniga u talagalay ma aha intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.